اسواني درسالين دوبي وركينا ما يصوتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحاب تشرفت بدن سودو هذا مركل يكسودو هذا channel كهوسو برو ولكن صاحبي كان عثمان هوسو. ما أنت مقال كم حكوا دعونا هس تاني وحقاضو على دانتو وأنا هس دانتا مقعدنا حلي هذا وردون هس تبلسي وحسمية أو فرسمة هذا يو direction كذا يو editing كذا إسكاله The Rockstone علي runtii The Rockstone channelkiisa waxaan daawan jiray laga soo bilaabay ilaa iyo 2019 bilowgeeda meelahaasi ilaa iyo hadda oo dhaxaadka sanadka 2020 intaasi gudaheedana channelkiisa waxa uu xagga muuqaal sameynta uu ku sameeyay improvement badan markii hore waxaan arki jiray inta badan markaasi isagoo ku mashquulsan ama heesaha markaasi la soo saaray muuqaaladooda reaction ka sameynayo de sax iyo qalad iyo maaragtay sida markaasi isaga la tahay in ka gudbinayo markii dambe de muuqaalada qaabka uu isaga muuqaaladiisa caadiga uu soo sameynayo channelkiisa muuqaalada vlogga muuqaalada caadiga muuqaalada b-rollka xitaa hees oo kale aad iyo aad runtii Rockstone uu dadaalaya aniga ahaan waa waxaan jeclahay in markaasi dhalinyarta ay ku tartamaan muuqaalada quruxda badan in markaasi ay noqdaan waxa ugu badan oo maaragtay de la isdhaho wow saan ku sameysay la isdhaho laakiin inta badan waxa aragnaa inuu xoog saaran yahay kaliya de adiga inta soo subscribers haysta 20 kun haysta 30 kun la haysta 100 kun wali ma gaarin 2 kun ku daawato yani ma ahan qof walba oo YouTube soo galo in maaragtay de uu YouTube oo yani meeshas kaliya oo lacag ka qaadanayo ma ahan wali jeedada laakiin waxa muhiim ah marka adiga meeshan aad timaado in aad ku joogto wax la yiraahdo horu socodkana ma ahan numberska subscriberska oo soconaya kaliya okay taas marka ka gudubna marka waxaan rabaa inaan heesta hore u sii galno heestan waa cusub tahay markaasi waxay soo baxday June 2 soo dhawaada واو ماشي ugu horeysa ee heesta ay ka bilaabanaysaa boorta cajiib ah kulay hees markii ay noqoto waxaan wada ogsoonahay musiga meesha ku jiro musiga ay ku bilaabanaysaa marka anagoo musiga sugayno wali la gaarin marka hore dhacay heesta ayaa halkan laga siinaya waa iska cadi dhalinyar walba in galabtii kafee la soo wada aado oo marka hadii fursad lahayo waxay fadhiyaan u maleynayaa gasacan ka garanaya Starbucks ayagoo fadhiyaan ayaa marka telefoon uu soo dhacay marka intii lagu sameeyay codkana kii music lama dul saarin ee waa ambient sound oo codkiide waxa laga dhigay bulxan meesha de cod meesha ha ahaado ama cod kale ha ahaado laakiin adiga waygan is so perfect heesta magaceeda markale waxa la yiraahdaa Wardoon iyo qof de banaanka jooga telefoon loo soo diray dhulkii hooyo laga soo wacay bal warka ay kala helaan aan fiirino واو aniga horta markii ay noqoto hees inta badan reaction kama sameeyo waad ogsoontiin taas haddana markii ay noqoto inaan hees xitaa reaction ka sameeyo erayada heesta ma soo qaato oo saas u yiri iyo sidaan u yiri aan u maleynaya ma dhaho sababtaan u dhigna waxay tahay de yani waa hol dhan iga xigta howlahayga ma ahan marka laakiin hadda heesta muuqaalkeeda iyo duubista iyo editka rock iyo yani fikir ahaan sida markaasi ay wada sameeyaan kulay haday kaliista iyo dii lagu jiraba meel ay dhig aniga horta ma ogi heestani waxa sameeyay iyo kulay gadaalaan ka arki doonaan uma leenayaa hadii ay ku xusan yihiin ama inuu isaga sameeyay ama inuu qof kale sameeyay laakiin heestani artistically sida ay ku socoto waa qof dibadda jooga banaanka wadankii ka soo jira sida aniga kale tusaale ahaan
oo u xiisay wadankii markii aan wadankii u xiisay wadankiiga marka inaan maaragtay de aan ka wareysto bal sidee leeyahay xaaladda inta see ka tahay inta maxaa dhacay warka maad ii soo dirtaan oo sidaas ah ayaa de hees aan ka sameeyay يعني way oo unique ah aan sii socno marka waliba waxaan rabaa inaan erayadii uu dhahay aan ku soo celisho intan dibadda iyo dal shisheeye jiray dadkeedin heeso miya ma ogi intaas wuxuu dhahay ma ogi dadkeedin heeso inuu dhahay maleena aan dawoobe warkii dhamaad ii soo dirtaan telefoon dhigtu ku haya yani banaankii uu socdaa dhalinyartii uu la fadhiyay telefoon uu caadi ula sheekeysanayo uu ka soo tagay telefoonkana uga muhiimsan absolutely perfect diraaciyo abaartii ma soo doogsadeen deertii iyo sidee roob idinku da'ay واو والله هيست يعني هدي اي tahay de heesta horta waxa ku jeclaysiin karo in heesta laftirkeeda marka hore wax oo nuxur leh ay ka shakeynayso erayadeeda miraheeda iyo sida ay u socoto iyo sida isku dhex jirto aad jeclaysan karto kow hadana waxa ku jeclaysiin karo video qurux badan hadda tusaale ahaan ka soo qaad aniga oo kale heestaniya waxaan u sameynayaa video oo waxaan u sameynayaa sheeko oo kale aan ku dhex darayaa aan dhahay ka soo qaad يعني sheeko oo kale ku dhex darmi karto male kaga haboon qaabka ay had u sameysan tahay oo ah qofkani inuu telefonkii ku wareysto biirolna markaasi looga dhigo de qofkani يعني sida uu maaragtay de kaligiisa uu yahay ama uu u soo socdo si qurux badan ay u sameysan tahay سؤال ويدينا this is so beautiful والله يعني سؤال ويدينا يا dadkii سؤال ويدينا يا ما aqaan inay qorsho tahay laakiin waxaan jeclaan lahaa in heestani oo laxankeeda wadato oo sidaan kulay dhaantadu sida tahay sidaan u maleynaa waa isku laxan heestani oo sidaan ah laakiin dhaantadani oo sidaan ah oo jawaab ah in loo soo sameeyo aan jeclaan lahaa waliba qaabkan oo kale loo sameeynayo ma u codaysan ha loo soo sameeyo وصادرة وركينا وصادرة ودقي وايه ونبات قبا إن شاء الله ونا نبات قبا دونا عندوبي دركني ما نبات قبا ويرو نبات قبا إن شاء الله نبات ونسي أهم دونا رجينا
isnimaada iyo danta guud la jira kii qabiilku doonaha loo gadi dagaha la iyo halka lagu degay maxaa ka qurux badan yahay qof markii uu wadanka joogana wax qurux badan soo saarayo oo maaragtay heesihiisa dhaantooyinkiisa aad iyo aad loo jeclaysanayo haddana markuu banaanka imaado isla hees isla dhaanto isagoo sameynayo haddana dadkii ku wareysanayo oo dadkii kula dardaarmayo oo dadkii dhahay akhbaartiina ii soo dira weliba isla hees la marayo runaantii aad iyo aad ay qurux badan tahay شعبنا دلال بنكدون يا وقت دار الظروف فينك على دراي بمدينة سيدي كبوري لها بيتك سليمة وركينا ودون يا erayada waxaa sameeyey xasan xukun garaad nin la dhaho erayo aad u heersan ayaa sameysay xasan xukun oo haddii aad tahay qof oo dalkii jooga iyo qof dibadda joogaba music waxaana sameeyey Haynook Adlabacho waa nin oo koley oo Ethiopian ah magaciisa ka garanaya voice recording asad faqdiid mahadnaq dad badan kuley loo mahadnaqaya way mahadsan yihiin dhammaan dadka ka qayb qaatay ama wax ka geystay calaanto runaantii waa fanaan oo dhammaan Soomaali magac ku leh oo la wada yaqaano heesihiisa ama dhaantooyinkiisana inta badan aad iyo aad markaasi loo daawanayay hees ahaan iyo magac ahaanba shacbiyad leh heestan way qurux badan tahay muuqaalkeeda waa heer sare ma fahmi karo sababta oo heestani adiga ayadoo ku jirto adiga 10 saac muddo kor u dhaafayso viewskeeda uu yahay 2000 oo wax waliba ka yar jeer in la daawaday laga yaabo xitaa hal qof oo iska jecelaystay inuu 10 jeer meelaha soo fiirsaday ay ku dhex jirto ma garanay sababta marka ay sidaas ay u tahay dadka heestan oo kale way qurux badan tahay waxa waaye dadka ay gaarto la jecelaysto oo maaragtay la share gareeyo dadka ay wadaagaan waaye waa awalba ku kala wada share gareena meel loo kala socdo marka aaway ciyaal TikTok aaway idin aaway mise TikTok maaragtay dhaanta lagu ma sameeyo heestan hal kala kiciyo waxa ayna markaasi mudan tahay sida daay aan sheegay baad sidoo kale xitaa in jawaab loo soo sameeyo The Rock Stone adigna waxa waa muuqaal aad iyo aad u qurux badan sameysay dhamaantiina aad iyo aad u mahadsantiin insha Allah inta muuqaal kale kulmi doona nabad ahaada